Turkiga uu shalay dalkiisa ku casuumay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka la yiraahdo Iran Abbas Araghchi isla markaana uu kala wada hadlay sida xaaladan loo soo gabagabayn karo oo xal kama dambaysa loogu heli karayo. Wararka Iran warbaahinta adduunka maanta wax kale oo ay ka sheekaynaysaa caawa ma jiraan, laakiin su'aal baa la isweydiinayaa waxa la leeyahay maxay tahay sababta madaxweyne Trump oo Mareykanka hogaamiya uu hadda Iran mudnaanta koowaad u siinayo ma inuu qamani soo qabtaa sidii Nicolas Maduro uu xabsi geliyo ciidamada Delta Force ay gacanta ku soo dhigaan, bas waxay ka dhigan tahay nidaamka wadankaasi ka jira meesha in laga saaro mise waa si kale nuclearka iyo gantaalahan iyo waxana loo socdaa maxay yihiin weerarka iyo ujeedada dhabta ah ee dagaalkan loo abaabulayo gobolka bariga dhexe. Khubaradu waxa ay faalaynayaan waliba marka la fiiriyo kuwa carabta oo xiganaya qaar kamid ah warbaahinta reer galbeedka oo ay Reuters ka mid tahay waxay leeyihiin ujeedada ugu ballaaran ee Trump uu doonaya waxay tahay Ayatollah Ali Khamenei meesha in laga saaro waa hogaamiyaha wadanka Iran ama murshidka ugu sareeya ee wadankaasi. hasaatee turbaba sheeka soo baxda waxa la yiraahdaa Khamenei hadii meesha laga saaro oo Maduro kale loo soo qaado maxaa dhacaya. waxa la yiri xaaladdu waaba ka sii daraysaaba waxa la helayaa dad badan oo bedeli karaya Khamenei kuwaas oo u diyaarsan in ay wadankan hogaamiyaan siyaasadihii Iran lagu wadana ay sii wadaan ujeedadana halkoodii ay ka sii socoto oo wax isbedelayo aan ahayn qof lagu bedelay baa dhacaya oo Mareykanku sidii arintaasi ay u sii qabanaysaa. sirdoonka Mossad ee nidaamka la yiraahdo Israel ayaa ku dhowda war ka soo saaray arintaas oo Trump faraha ka geliyay. waxay leeyihiin wadankan haddii weerar cirka lagu qaado dhaay laga kaban maayo waa Iran, haddii ciidamo dhulka la geliyo oo shisheeyana iyaga gudahooda abaabul sameynaya oo isku tagooda iyo unitygooda ama al-ittixaad shacbi wax la yiraahdo ayaa imaanaya oo dadka ayaa garbaha isqabsanaya. haddaba maxaa la sameeyaa? Israa'iiliyiintu warbay soo jeediyeen waxay yiraahdeen hadda dawladda waa nugushahay shacabkii iyagana waa kala tageen si marka aan guulaheena u xaqiijino waa in la biritaaro kooxa mucaarada oo gudaha gala. hadda marka optionkii ahaa dagaalka ayaa meel la iska dhigi karaa waxa la leeyahay mucaarad hubaysan oo gudaha ka dagaalamo waa Iran hal la sameeyo. taas haddii ay dhacdo suuragal ma tahay in la dagaalami karo iyadoo waliba leeyahay iyadoo mudaharaadyadii 60,000 ee qof ay ku dhinteen sida reer galbeedku iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay wax u dhigayaan ay jiraan ay dawladdu wali adag tahay oo ma jirto cid is haysata. laakiin haddii gudaha dadka la geliyo maxaa dhici karaya? dalka Iran waa la isweydiinayaa sida loo kala furfuri karo Khamenei waxay u muuqataa in uu wali adag yahay. haddii dagaal dhaco gobolka bariga dhexe waa u dhamaatay. khubarada qaar oo ka soo muuqanaya telefishinada carabta ee Al Jazeera ugu horeysa sida dhaxaya lama oga gobolkan gilgilanaya saameyntiisu meesha ay aadi karayso. haddii se Iran la weeraro oo gacanka Hormuz uu xirmo dagaaladu ay sii ballaartaan carabta ay saameyn ku yeelato droniska nimankan ay dhigaan meel kasta lagu weeraray gantaaluhu dunida saameyn adag ay ku yeelan doonto. waxayse ugu daran wadamada quudkooda dibadda ka soo dhoofsada ayaa noqonaya kuwa saameynta ay ku yeelato geeska Afrikana waa barta dhibaatada ugu weyn ay ku dhici karayso. soo